عشر كيسة شنات وحان كيها لنا reaction quotient أيان كيها لنا دكتور كان جبا عشر كا أرض هو إنه شرح كرا وحال اللي يرادو reaction quotient ونا حسابين كرا حسابتا كتم هذا reaction quotient reaction quotient waxaa loo soo gaabiyaa xarafka Q maxay u taagantaa marka waa quantity that provide a measurement waa tiro ku tusinaysa cabiraad la cabirayo relative amount of product and reactants present in reaction at given time waxaa lagu siiyey falgal oo reactant iyo product leh markii la rabo in la ogaado reactant iyo productiga waxyaabaha relative amount ay leeyihiin ayaa waxa la isticmaalaa Q. We can also define reaction quotient waxa kale aan ku sheegi karnaa inay tahay ratio of concentration of a product to concentration of reactant at any given point other than equilibrium waa saami lagu sheegayo concentrationka productiga uu ku leeyahay concentrationka reactantiga mar walba ee lagu tusiyo ama falgal uu dhaco ayadoo aan ahayn equilibrium it's expressed as equilibrium constant laakiin ayadoo waxa loo soo bandhiga ama loo tusaa oo loo isticmaalaa sida K oo kala ayaa loo isticmaalaa equilibrium constant but it uses the value for concentration of a substance at point other than equilibrium laakiin ayadu waxaa loo isticmaalaa qiimaha concentrationka ee shayadu ay leeyihiin ee barta lagu sheegay inaysan ahayn sida equilibriumka oo kale K ayaa waxaan u qori jirnay equilibrium constant laakiin coefficient waxaa loo qori doonaa Q waxaan leenahay waa activities of product and reactant at any given time therefore for a reaction markaan ka hadlaynay chemical equilibrium constant waxaan isticmaali jirnay ereyga K ama xarafka K laakiin maadaama aan isticmaalayno reaction quotient waxaan isticmaali doonaa xarafka Q ayaan isticmaali doonaa oo falgalka lagu cadeyn doonaa sida ku xusan qaacidada hadda hortaada taala horgalaha xarafka yarka waxaan u isticmaali doonaa mar walba power sida hore aan u soo sheegnay marka A capital oo powerkeedu yahay A small B capital oo powerkeedu yahay B small ayaa waxay leeyihiin C capital oo powerkeedu yahay C small iyo D capital oo powerkeedu yahay D small marka labada falgal ay sameeyaan reactantiga ayaa wuxuu soo saari doonaa product laakiin reverse reaction waa falgalka marka waa falgal reverse reaction oo falaarta sida ka muuqato waa falaar labada dhinac u taala oo soo noqonaysa markasta falgalku yahay mid labada dhinac u noqdaan waxaan dhahnaa reverse reaction qaacidadu waa tan marka hadii tiro horgala uu leeyahay xarafka waxaa laga dhigi doonaa power sida kuwa horane productiga ayaa waxaa loo qaybin doonaa reactantiga marka ayadoo la isticmaalayo bracket productiga ayaa waxaa loo qaybin doonaa reactantiga mar walba productiga ayaa dusha mari doona marka waxaan leenahay Q waxay leeg tahay product oo loo qaybiyay reactant Q waxaan leenahay product oo loo qaybiyay reactant ayay leeg tahay value of Q ayaa rabnaa marka inaan ogaano the value of reaction quotient can be compared to the equilibrium constant reaction quotient iyo equilibrium constantiga ayaa la isbarbar dhigaa oo macnaheedu waxa weeyaan Q sida hadda aan ku saarno qaacidada
productiga oo loo qaybiyay reactantiga ayaan isticmaalayn oo barakada ku jiraan markaan ka hadlaynay equilibrium constant sida ayuu ahaa marka equilibrium constant iyo reaction coefficient waxa leenahay waa qolo compared ah oo la isbarbar dhigo ama isu qalma to determine the direction of reaction shift in order to reach equilibrium ujeedku muxuu yahay marka si loo cadeeyo ama loo go'aamiyo jihada falgalku u socdo marka jihada falgalku u socdo si falgalku u gaaro equilibrium marka si falgalku u gaaro equilibrium meesha waxa ku ogaanaynaa marka in hadafku uu yahay reaction coefficient uu yahay in la ogaado jihada falgalku u socdo jihadaas hadafkeedu uu yahay in falgalku uu gaaro equilibrium marka ekaan inuu gaaro q hadday ka weyn tahay k marka concentration product is too high productiga ayaa wuxuu noqon doonaa mid aad u badan the reaction will try to use more product marka falgalkana wuxuu noqon karaa ama uu noqonayaa mid aad u isticmaala falgal badan ama u isticmaala soo saaro badan oo productiga ayaa ziyaadi doono to produce si loo soo saaro reactants therefore the reaction will be shift to left to reach equilibrium sidaa darteed falgalku wuxuu u dhaqaaqi doonaa dhinaca bidix si uu u gaaro equilibrium marka meesha waxaa ka ogaanay marka q ka weyn tahay k productiga badan haddii productiga uu high yahayna productiga badan wuxuu dib u celin karaa ama dib u soo saari karaa reactant marka falgalkan wuxuu u dhaqaaqi doonaa dhinaca bidix si uu u gaaro equilibrium taa warka hadda aan soo sheegno marka cagsigiisa waxaa noqon doonaa marka q ay ka yartahay k the concentration of product is too low marka waxaa aad u liita productiga liita yaa badan marka reactantiga badan marka falgalka nooca marka will try to use more reactants kii hore muxuu ahaa waxaan isticmaalaynay product si aan u soo saarno reactant kan laakiin waxaan isticmaali doonaa more product ujeedku muxuu yahay to produce a product marka si loo soo saaro product marka waxaa badan kan waxaa badan reactantiga badan reactantigu hadday bataan waxay soo saarayaan product sama kii hore muxuu ahaa productiga badnaa si ay u soo saaraan reactant marka falgalkan waxaa leenahay waa reverse reaction marka kii hore wuxuu u dhaqaaqayay left side kan wuxuu u dhaqaaqi doonaa right side marka ujeedku muxuu yahay in falgalka la gaarsiiyo equilibrium q hadday la ekaato k ka waran haddii q iyo k ay ekaadaanne systemka waxaan leenahay wuu egyahaba waa mid equilibrium ah marka oo markaaba eg example koowaad haddii k ay tahay hal isku dhiska uu yahayna carbon monoxide carbon dioxide oo tiradiis ay tahay 2 mol per liter iyo hydrogen oo asna ah 2 mol per liter carbon monoxide oo 1 mol per liter ah iyo water molecule oo asna ah 1 mol per liter ayaa waxaa lagu siiyey assemble marka waxaa lagu yidhi raadi q value raadi ayaa lagu yidhi for this reaction marka the equation and which the direction will the reaction shift waxaa kaloo sheegaysaa jihadu falgalku u socdo ilaa waxaan soo sheegnay q haddii ay ka weyn tahay k in falgalku uu bidix aadayo haddii q k ay ka yartaana falgalku uu midig aadayo marka shiftiga loo dhaqaaqayna caddee solution marka ko waxaan sameynaynaa waxyaabaha givenka aan haysano carbon dioxide hydrogen gas carbon monoxide iyo water vapor ayaan haysanaa falgalkan wuxuu ahaa waa ka carbon monoxide oo lagu daray water molecule ayaa wuxuu soo saaray carbon dioxide iyo hydrogen gas q waxay la ekeed product
oo laga jaray product oo loo qeybiyey reactant. Product waxaan haysanaa marka product waxaan haysanaa carbon dioxide iyo hydrogen gas. Reactant waxaan haysanaa carbon monoxide iyo water molecule. Marka la isku dhufto labada oo loo qeybiyey labadana isku dhufan waxaa soo baxayo 4. marka waxaan leenahay Q waxay la eg tahay 4 maadaama 4 ay la eg tahay marka anaga K maxay haysanay 1 iyo hal yaa weyn 4 ayaa weyn sidaa darteed waxaan leenahay Q ayaa weyn soo ma haddii Q weynaato ee K ka weynaato waxaan dhihi jirnay productiga ayaa badan waxaa yar reactantiga waxaan loo dhaqaaqi doonaa left side si loo gaarsi falgalka equilibrium. marka waxaan leenahay dhinaca caadi waa dhinaca bidix yaa weyn Q ayaa weyn waxaana yar K ayaa yar marka. example-ka labaad waxaad raadisaa qiimaha Q ay leedahay iyo dhinaca falgalku u dhaqaaqi karo haddii K ay tahay falgalkan uu yahay hydrochloric acid lagu daray sodium hydroxide productin uu yahay sodium chloride iyo water molecule. waterka waa lagu siiyey marka waxaa lagu yidhi 0.5 waa water moleculeski oo toos ayaaba loo bixiyey. concentrationka aad haysatee hydrochloric acid sodium hydroxide iyo sodium chloride-ka are 3.2 molarity 4.3 molarity iyo 6 molarity ayay kala wataan. 3.2 waxaa iska leh hydrochloric acid 4.3 waxaa iska leh sodium hydroxide 6 waxaa iska leh sodium chloride. marka saa ayay u kala leeyihiin. maxaa noola dira marka waxaan raadinaynaa qiimaha Q ayaan raadinaynaa. waaye kow qiimaha K meeqa haysanaa 0.5 ayaa K haysanaa Q ayaan raadinaynaa. Q maxaa lagu heli jiray marka Q waxaa lagu heli jiray product oo loo qeybiyey reactant. marka waterka waa ka saaraynaa asaga pure liquid oo noqday kuwa laakiin gas oo aqueous ayaa ku jira. product oo loo qeybiyey reactant ayuu marka noqonayaa halku. product maxaa haysanaa 6 ayaa haysanaa oo sodium chloride-ka waa 6 reactantigana waa hydrochloric acid iyo sodium hydroxide 3.2 iyo 4.3 ay kala wataan. Q waxay la eg tahay 0.44 waaye K maxaa haysanaa marka 0.5 iyo 0.4 yaa badan marka 0.5 badan soo maaha waxaan leenahay K ayaa tookada weyn yaa laga weyn Q ayaa laga weyn. haddii Q laga weynaado waxaa badan aan dhahnay falgalka yaa ku badan reactantiga ayaa ku badan productiga ayaa yar sidaa darteed falaartu waxay aadi doontaa right toward hand dhinaca midig ayay falaartu u dhaqaaqi doontaa to achieve equilibrium marka si loo gaaro ekaan dhinaca tirada ah ama ekaanta kiimikeed si loo gaaro. marka laba example aan soo qaadanay mid waxaan kaga hadalnay aan ku sheegnay in Q ay weyn tahay midna waxaan tusaale ku soo qaadanay inay weyn tahay K. exercise for synthesis of ammonia the value of K is 6 ku dhufsan 10 ku jibaaran -2 at 500 degree experimenting 0.5 mole of nitrogen and hal dhibic eber ku dhufsan 10 ku jibaaran -2 mole of hydrogen. samaysan la sameynaya ammonia value K waa 6 ku dhufsan 10 ku jibaaran -2 heerkulkiisa uu yahay 500 degree experimentiga. nitrogen waxaa haysaa 0.5 mole per liter hal ku dhufsan 10 ku jibaaran -2 oo hydrogen ah iyo hal ku dhufsan 10 ku jibaaran -4 oo ammonia ayaa lagu qasay ama la isku lifaaqay ayadoo la isticmaalayo heerkul gaaraya 500 degree
iyo 1 litir oo weel ah. Direction-kee ama jihadee loo samaynayaa falgalka si loo gaaro equilibrium. waxaan raadaysaa qiimaha ay leedahay q go'aami direction-ka falgalka uu u socdo haddii isku dhis uu yahay nitrogen lagu daray hydrogen oo product uu yahay ammonia. n waxaa haysataa 0.04, h waxaa haysataa 0.09, k waxaa haysataa 0.04. soo saar marka q. cashirkeeni maanta kaasoo aan kaga hadlaynay reaction question halkaa ayuu ku egyahay.